wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo horumarinta khayraadka kalluunka Somaliland Marwe Yurub Abiib iyo wafdi ay hogaaminayso oo ku sugan magaalada Burco ayaa saaka kormeer indheena ku tagay suuq cusub oo loogu talagalay kaydka iyo iibsiga kalluunka. Suuqani oo magaalada Burco ka hirgelisay hay'adda Fire Fishing iyo shirkadda Najah Construction ayaa noqon doona xarun si weyn u dhiirigelin doonta khayraadka badaha Somaliland ee kalluunka. waxayna mas'uuliyiinta shirkadda Najah iyo hay'adda Fire Fishing ka warbixiyeen muhiimadda xaruntan cusub iyo muddada ay ku dhamaysmi doonto iyagoo sidoo kale mahad celiyo dawladda hoose ee degmada Burco oo bixisay dhulka. waxa weeye saribadii cusbeed ee loo dhisay kalluumaysiga xaafadda Faarax Xomar ee u dhoweyd maxaa suuqa Gaha. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay golaha deegaanka oo ugu horeeyo meerku muraad oo dhulkeena siiyay runtii tacab fara badan iyo energy fara badan iyo waqti fara badan geliyay sidii ay riyadaasi ay u rumoobi lahayd. taas waxaynu tusaysaa dhammaanteen in haddii aanu dhinacooda jeesano waxa weeye aynu wada riixi kareen waana taleenaga doonay inta marka laga yimaado waan soo kale u mahadnaqaynaa EUD iyo midowga Yurub oo inaga maalgeliyay mashruuca kan aynu imka wadno oo dabcan uu qayb ka yahay saribadan ay qayb ka tahay mashaariic badan oo laga fulinayo gobolada Somaliland oo dhan oo runtii meelana laga sameeyo saribado sida Burco oo kale Booramo oo kale meelana laga sameeyo meelo station oo meelaha xeebaha Burco xoolaha lagu xaman jiray imika waxaan rajaynayaa in kalluunkana laydinku xanto kalluunkuna uu soo galo waa dad qalbi furan oo ilbaxa waan rajaynayay inay si fiican uga faa'iideystaan dhammaanteen waxaynu wada faa'iidaa inagoo waxa danta guud wada dhinac istaagna meel fiican bay maraysaa gabagabay ku jirtaa inta finishka imka inoo muuqata ayuun baa inoo hadhay intaana insha Allah sida ugu fiican ee shirkadda Najah looga bartay ee awalna lagu yaqaanay ayaan uga soo baxaynaa insha Allah mashruuci waxa inoo hadhay inaan jingadii saarno iyo finishingkii cadayntii intaasun baa inoo hadhay structure-kii dhamaantii mashruuci waa dhameystiran yahay dhinacayagana waa ka diyaar insha Allah ta'ala insha Allah waxay noqon doontaa mashruucani marka uu dhamaado in wax weeye ay ka faa'iideystaan dad badan oo ku nool xaafadan oo runtii aad isu kay garab taagay nala shaqeeyay injineerka hawlaha guud waan shaqadana aad ugu qanacnay oo aan aragnay in tayadeeduna aad u wanaagsan tahay wax qabadkeeduna uu gaari doono insha Allah Burco corner to corner uu gaari doono isla markaana insha Allah dadkeenu ka faa'iideysan doonaan iyadoo aanu ka eegayno xagga sanitation-ka iyo xagga fayadhowrka iyo xagga wax weeyaan quality-ga dhammaanba ay ka gudubtay heerarkii quality-ga ay ka gudubtay. wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluunka Somaliland iyo agaasimaha guud ee horumarinta khayraadka kalluunka ee wasaaraddaasi Master Faad iyo xubno kale ayaa aad ugu mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismahaasi waxayna sidoo kale dadweynaha reer Burco ugu baaqeen inay ka faa'iideystaan suuqaasi. waxweeyaan kalluunku waa xoolaheena labaad geel iyo ariga iyo lood iyo xoolaheena naqana laakiin kalluunkuna waa xoolo kale Ilaahay ina siiyo natural oo badda ku jiro inaynu isticmaalno oo aynu maartay aynu ka faa'iideysanana aynu u baahanahay xoolaheena sidaad ogtihiin mar haday gabaabsi yihiin kalluunka waa farxad weyn bay noo tahay inaanu ka qayb qaadano oo aan maanta Burco laga furayo goob kalluunka loogu talagalay oo aan hore uga jirin Ilaahay baa mahad u sugnaatay hay'aduna ku mahadsantay fulinaysaa Najahna waxa looga bartay inay shaqada qurux badan dhisto marka aanu soo eegi doona markuu dhamaado meelna hadii cunto lagu sameeyo waxa lagu hayaa cunto tahay nadaafad iyo wixii aan ficil lahaaba waa loo baahan in barafkeedii la helo in nadaafadeedii la helo in wixii lagu shaqeynayo la helo in ilaahay dadka ka shaqeynaya in la eego in caafimaadkeedii la helo ayaa horta loo baahay mas'uuliyadda saarana taa weeyaan dadka reer Burco aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maayarka bixiyay dhismahan iyo golaha deegaanka Burco iyagana waan mahadnaqayaa Ilaahay baa mahad leh in waajib bay ka soo bixin qaran National Development Plan 2 waxa ku jirta in kor loo qaado in ka faa'iideysiga khayraadka badda iyo kalluunka wasaaradda oo dadka qaranka uga mas'uulaha hawsha gudanaysa waxay ku talo jirtaa ama ay fulisay qorshayaal badan oo ah in adeegyada ama baahiyaha aasaasiga u baahan yihiin kalluumaysatada reer Soomaaliya marka hore la daboolo oo ay ugu horeyso inay helaan baraf dhaliyayaal iyo qaboojiye ay helaan kadib marka laga shaqeeyo sidii kalluunka uu soo gaari lahaa isagoo marka quality-giisu fiican yahay caafimaad ahaan iyo nadaafad ahaan uu soo gaari lahaa bulshada reer Somaliland siiba magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ku yaala waxaan marka bulshada reer Somaliland gaar ahaan bulshada gobolka Togdheer ee Burco aan runtii ku dhiirigelinayaa inay ka faa'iideystaan hawshan oo ah wax iyagu ay isku soo wada duuba markii uu horeysay ee laga hirgeliyay suuq noocan oo kala magaalada Burco oo ahayd mid ku caan xoolaha nool waxaana ku soo badanaya goobaha cunto ee kalluunka. Axmed Nuur Samraawi warbaahinta SBS magaalada Burco.